dad badan waxay na weydiiyaan sababta oo diiradda loo saarayo muuska iyadoo ay jiraan dalagyo badan sida galleyda iyo masagada iyo waxa soo raaca. Macnaha waxaan ognahay muuska in oo mataqaanaa wax weyn dhaqaalaha Soomaaliya uu ka geystay dagaaladii ka hor. macnaha muuska wuxuu ahaa dalagyada Soomaaliya oo aad horumar weyn ka gaaray. macnaha ilaa iyo mataqaanaa heer uu dhaafay isticmaalka localka wuxuu u gudbay export u gudbay. macnaha waxa waaye ilaa waxa laga heli jiray sanadkii wax ku dhow 90 milyan oo dollar oo dakhli ah oo hard currency oo u soo noqon jiray waddanka. marka taas waxay ku tusaysaa in muuska potentialitygiisa ama wax soo saarkiisa uu aad u badan yahay. laakiin bacdamaa dagaalkii uu dhacay wixii dhammaan waa burbureen, dakhli hadda naga soo gala ma laha. laakiin weli waxaa jiro beeraley isku xiran oo aad iyo aad uga hoolan muuska. waxa muuskan hadda Soomaaliya laga cunana ay soo saaraan, ayagana se culays weyn haysta oo ku aadan wax soo saarkii muuska. beeraleyda muuska caqabooyin badan ayay la kulmaan. xagga caqabadaha waraabka waa jiraan, caqabadaha waxaa jiraan qarashyo ku badan oo fertilizerskii la isticmaalayay, labor cost shaqaale badan oo mataqaanaa ay ka shaqeeyaan ay ka howlgalaan kostigoodii intaasoo dhan iyadoo caqabada ah. laakiin waxaa hadda aan ka hadlaynaa waxa ay beertaan laftirkooda. ilaa hadday macnaa muuska ma aha yani abuur la gadanayo oo la beerayo ma aha, laakiin waxaa la isticmaalaa beer oo duntay ayaa jiridii iyo baloonigii waxay u yaqaanaan beeraleyda ayaa laga soo qaadaa. baloonigaas ayaa beer cusub lagu beeraa. marka habka baloonigaas loo qaado oo beerta cusub loogu beero waa hab oo shaqo badan u baahan. ilaan balooniga macnaa ilaa waxaan ognahay hektarkiiba oo moos ah inuu galo 2,000 ilaa 2,500 oo balooni ah. midda kale markii baloonigaas oo la qaado oo lagu beero beerta, macnaa waxaa dhacayo in waxa aad beertay wax caleen leh iyo wax xidid leh midna ma aha. waxa waaye waa qayb ka mid ah jiridkii aad soo goysay oo aad beertay waaye. laakiin awood wuxuu u leeyahay inuu soo baxo, inuu soo dhasho. marka waxaa dhacda inay beeraleyda ay dhowr jeer ay ku noqnoqdaan, ay waraabiyaan baloonigaas inuu soo baxo oo caleen yeesho iyo xidid inuu yeesho. waxay ku qaadanaysaa ugu yaraan 45 maalmood inay mataqaanaa inay arkaan in wixii inuu soo baxay. marka muddadaas oo la sugaayana dhowr waraab ayaa gelaya. waxaa laga yaabaa inay 10kii beri hal mar inay waraabiyaan. marka waraabkaasna waxa waaye qarash ayaa ku socdo. ilaan waxa waaye motoor ayaa la isticmaalayaa, nafta ayaa la isticmaalayaa, qofkii webi leh iyo qofkii ceel leh intaba waxa waaye qarash oo shidaal ayaa ku socdo. marka badanaana waxaa dhaca markii intaas la beero kulli ma soo wada baxaan. waxaa laga yaabaa 20% inay dhimato ama 30% inay mataqaanaa ay soo bixi weyso ilaan biyihii gaari waayey ama baloonigayaa mataqaanaa ahaa balooni aan tayo lahayn. marka waxaa dhacdo in wixii oo ay dhinteen markaas oo soo bixi waayeen in haddana dib loo abuuro. beeraleyda waxay u yaqaanaan naqaal. naqaalkaas macnaa waxa waaye in 100% in la dhammaystiro waaye. marka 20% haddii kaa baaba'day hadda inaad ku noqotid 20kii kale inaad abuurtid waxay kugu qaadanaysaa 2 bil inaad sugtid ugu yaraan si aad naqaalka u samaysad. marka dhibaatadaas si looga baxo oo beeraleyda ay qabaan adduunkoo dhan waxaa la isticmaalaa waxa la yiraahdo tissue culture. marka tissue culturekaas waxa waaye waa geed laabka lagu soo saaray oo loo isticmaalay nafaqo artificial ah oo laabka lagu koriyey. tissuegaasna wax kale ma aha, waxa waaye wixii beerihii oo beerta lagu beerayay ama noocii beerta lagu beerayay oo sample laga soo qaatay
oo laabka la geeyey oo la sii badiyey oo kumaan kun laga dhigay marka yacni adduunka o dhan waa la isticmaalaa waxayna yaraynaysaa macnaa shaqooyinkaas badan iyo howlahaas badan oo beeralayda ay gelayaan shirkadda Filson waxay soo samaysay laboratory oo lagu sameynayo ama lagu horumarinayo muuska gaar ahaan qaybtan tissue culture-ka marka tissue culture-ka Filson ay isticmaasho ma aha wax oo ka duuban waxa ay beeralayda isticmaalaan sababta waxa waaye maaddada ama waxa lagu bilaabayo la isticmaalayo waxa waaye wixii beeralayda ay isticmaalayeen ayaa sample laga qaataa oo laabka la geeyaa oo la badiyaa ma aha GMO ma aha wax cimilada wax u dhimaayo ama saameynayo marka la beeraayana xirfad kale oo loo isticmaalayo xirfad ka duuban sida loo beerto ma aha marka waxa waaye waa wax oo locally loo diyaariyey ayaa mataqaanaa ayaa lagu howlgalaa marka impactiga ay ku yeelanayso macnaa beeralayda iyo guud ahaan waddanka aad ayuu u weynaan karaa sababta waxa waaye beeralayda waxay helayaan wax oo uniform ah oo halkii mar hadday beeraan aysan ku noqnoqonaynin dhaqaalkii badanaa oo ay ka istaagayso beeralayda waxay helayaan in qarashkoodii leybarka ay hoos u ridaan waxay faa'iido helayaan oo kale in waraabka badan oo mataqaanaa marka balooniga ay beeraan ay ku noqnoqonayaan inay qarashkaas waraabka xataa inuu ka yaraado marka guud ahaanna yacni haddii oo waddanka ilan maanta waxa waaye marxalada lagu jiraa berri marxalad kale la gelayaa waxaan hadda ku rajo weynahay in exportigii oo muuska inuu soo noolaado inuu soo noqdo taasi hadday timaado waxaa loo baahanayaa wax oo standard fiican ku socdo oo uniform ah ilan waxa waaye markii balooniga isticmaalaysid waxaagoo dhan uniform ma aha waxna waa weyn yihiin waxna waa yar yihiin muuska xataa sizekiisa waa kala gedisan yahay kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar laakiin tissue culture-ka wuxuu kuu saamaxayaa wax uniform ah oo standard fiican leh oo standard export geli kara ayaa mataqaanaa ku saamaxaya inaad samayso muuska potentiality ama awood fiican ayuu leeyahay oo horumar waddanka uu gaarsiin karo marka muuska waxay keenaysaa shaqo abuur badan in mataqaanaa dadkii ay aad u howlgalaan dadkii shaqo abuur hadday helaan dhaqaalahooda ay fiicnaato waxaa imaanayso in caafimaadkoodii iyo waxbarashadoodan inay fiicnaato inay qoyskoodii inay awoodaan inay mataqaanaa ay si fiican ay u quudin karaan marka taas waxay keenaysaa in dhaqaalaha waddanka oo dhan marka dambe inuu fiicnaado oo at least mataqaanaa inay noqoto wax oo dadka wax weyn u tara dhaqaale ahaan waxaa kala meesha soo baxaysa oo kale mar haddii oo la gaaro horumar oo dhaqaale ilaa export level haddii la gaaro oo hal dalag haddii laga gaaro xataa waxaa soo baxaysa dalagyada kalena inay soo raacaan sababta waxa waaye tabta oo technology-ga loo isticmaalay muuska wax la mid ah ayaa ayagana loo isticmaali doonaa kuwa kale oo jira oo hadda wax soo saarkooda aad u yaryahay sida galleyda oo kale iyo misigada iyo digirada waxaasna waxaa laga yaabaa inay darsi u noqoto teknolojiyada isticmaalkeedii inay darsi u noqoto iyagana ay isticmaalaan wax la mid ah oo dhaqaalahoodii horumariya waddankana horumariya